haddaanu 10 maalmood dabadeed aanu nimid oo aan garanay in aanu tagno oon soo hambaliyano aan u ducayno waa intaan isku jirro xuduudka Somaliland iyo Djibouti waa 16 kilomitir waa dalka ugu dhow waana run ahaan dhaqan ahaan diin ahaan dhiig ahaan labada dal isugu dhow in markaa dadka kale aan ka soo horeyno aan ka soo hormarro calaamasaarkii bisha dabadeed dhacay waa socdaalkayagana ayaa tilmaamaya intaan isku jirro labada dal isku jiraan madaxweynaha cusub ummadda reer Somaliland ay dooratay waan hambalyeynay hambalyana waan la soconay waana nuu ducaynay waxaanu ilaahay uga baryeynaa in xilka culus loo igmaday ilaahay ku garab galo noqdana kii basbas iyo barwaaqo iyo horumar Somaliland gaarsiinayay waqtigan maanta aanu ku nimid waa mid ka soo hormaray boqosooyinka caadigeed la isugu yimaado waa mid walaalnimo weeyi waa mid darasnimo ka kale ee calaamasaarkana dabcan waa Djibouti waa ay iman doontaayoo dee wafdi rasmi ah oo official ayaa iman doona dee madaxweynahana waanu hambalyeynay ummadda Somalilandna waanu hambalyeynaynaa waxaan ugu hambalyeynaynaa sida quruxda badan ku dayashadu ay ku jirto ay tahay in lagaga daydo tii cidnaanay caawin doorashada heerka sare ah ee casriga hore oo la isku raacay in ay tahay tii ugu horreysayba qaaradda Afrika ka dhacda ee ay suuro geliyeen inta dadka dheertiin baan leenahay idinkoo bil aqoonsiga cidnaanay idin gargaarin gaadheen aqoonsiguna waa ka ummaddu ay aqoonsatay idinka ay aqoonsaday hambalyaan idin leenahay